Gaashaanbuurta NATO waxaa la aasaasay sanadkii 1949kii. Dowladihii ku midoobay waxa ay uga gol lahaayeen in ay isaga caabiyaan isballaarintii Sofiyeetka ku hayay wadamada Yurub, iyadoona ay NATO tahay xulafada militari ee haatan ugu awooda badan adduunka. Aynu dushiisa joognaa haatan. Aasaaska NATO waxa uu salka ku hayaa ilbaxnimada, madax-bannaanida iyo afarta maguurtada ee dalalka xubinta ka ah NATO. Xubin dalka ah oo la weeraray NATO waxay ka dhigan tahay NATO oo dhan oo la weeraray. Sidaa darteed waxa ay weerar ku wada qaadayaan dowladii soo weerartay dowladaas xubinta ka ah Gaashaanbuurta NATO. Waxaa lagu aasaasay Gaashaanbuurta NATO 12 wadan. Gaashaanbuurta NATO waxaa xubin ka noqday sanadkii 1952 Giriiga, Turkiga iyo Jarmalka Galbeed. Sofiyeetka ayaa wuxuu aasaasay xulafo looga soo horjeeda Gaashaanbuurta NATO oo loo yaqaan Gaashaanbuurta Warsaw. Xulafada oo kala tagtay markii Sofiyeetku uu burburay 1991dii. Jamhuuriyadaha Czech, Poland iyo Hungary oo ka tirsanaa Warsaw ayaa ku biiray 1991dii markii ay ka burbureen Gaashaanbuurtii Warsaw iyo sidoo kale Sofiyeetkii oo 1991dii burburay. Jamhuuriyadaha Czech, Hungary iyo Poland ayaa ku mid noqday 1999kii. Gaashaanbuurta NATO oo ka tirsanaa markii hore Gaashaanbuurta Warsaw. Ilaabadii xigtay oo qaada Gaashaanbuurta NATO waxay ahayd 2004 markii dowladaha Estonia, Latvia iyo Latvia ay ku biireen Gaashaanbuurta NATO. Sofiyeetka ka mid ahaa ilaa uu ka burburay 1991dii, waana halka Gaashaanbuurta NATO iyo Russia ay isaga dhaceen. Sidoo kale Slovakia, Slovenia, Bulgaria iyo Romania ayaa ka mid noqday iyaguna Gaashaanbuurta NATO, iyadoo xalfad lagu soo dhaweynayo xubinnimadooda lagu qabtay magaalada madaxda Mareykanka ee Washington. Montenegro ayaa 2017kii ka mid noqday NATO, waana dalkii ugu dambeeyay ku biiro Gaashaanbuurta NATO xubin ka hela. Dhismeedka NATO waxa uu ku beegnaa dagaalkii labaad ee adduunka inta uusan bilaaban. doona NATO loo sameeyay isballaarsigii uu ka waday Sofiyeetka Yurub. waxaana Gaashaanbuurta NATO loo diyaariyay ciidamo quwad leh oo hoos taga qaramada midoobay. 1999kii waxa ay weerar xagga xirka ku qaaday Yugoslavia, kaasoo socday 11 isbuuc si xoogagga Serbia looga saaro Kosovo. Weerarka waxaa lagu qiyaasaa weerarkii ugu weynaa ee Gaashaanbuurta NATO fuliso. Weerarka kolkii uu soo dhamaaday Kosovo waxaa ku sii sugnaa ciidamo nabad ilaalin oo ka socda Gaashaanbuurta NATO oo lagu qiyaaso 16,000 oo askari. 2012kii ciidamadii Kosovo joogay ee nabad ilaalinta u joogay waxaa lagu soo koobay 16,000 oo askari. NATO howlgalkii ay ka furisay meel ka baxsan Yurub waxa uu ahaa 2003dii weerarkii ay ka furisay Afghanistan caasimadiisa Kabul, iyagoo fasax ka haysta qaramada midoobay. burburkii Sofiyeetka ee 1991dii kadib, NATO waxa ay damacday inay soo celiso xiriirkii ay la lahayd Warsaw, gaar ahaan Ruushka, waxayna 1994 u diray fariin Warsaw iyadoona tiri waxaan rabnaa inaan xiriir yeelano xagga ammaanka iyadoo la tusiyo militari oo wadajir aan u sameynayno. 1997dii waxaa la aasaasay midowgii Warsaw iyo NATO, iyadoona Moscow ay bixinaysa la talinta labada dhinac arrimaha quseeya, iyadoo mar la dhageysan jiray talada ay soo jeeso Russia. 2002 waxaa la aasaasay midowgii NATO iyo Ruushka waxa awood loo siinayay inuu ka qaato arrimaha siyaasadeed iyo midda amniga NATO. hase yeeshee waxaa midow soo kala dhex galay xiriirkii Ruushka iyo NATO kadib markii ay ka biyadiiday Ruushku inay aqbasho isballaarintii Gaashaanbuurta NATO ay ka waday geeska Yurub. Gaashaanbuurta iyo Ruushka khilaafkooda halka ayuu ka soo ifbaxay kana soo bilowday kadib ilaa ay diido inay wadamada ka mamnuucda dariska la ah Ruushku
quwad ilaa intaa waxay dhisaysay ruushku ay ku hor istaagi kadho ayna ku soo noolayn kadho suxufiyeedkii burburay 1991dii. badan ruushka waa la maqli waayay wuxuuna soo jeediyey tilaabo ah inaysan ku biiri karin wadamada asaga dariska la ihi gaashaanbuurta NATO isballaarintan ay joojiso gaashaanbuurta NATO sidii lagu badiidayba suxufiyeedkii ayaga ka horeeyay oo isballaarin lagu riday ayaguna sidaan oo kaleeto inta isu ballaariyeen wadamada Yurub. sidaa darteed maanta waxay cadaysatay quwadeeda military ayadoona weeraray wadan uga jira dalka markii adduunyada markii la xisaabiyo xagga military kaalinta 20aad ayaduna ay uga jidho kaalinta 2aad. Ukraine waxaa loo ballan qaaday gaashaanbuurta NATO iyo Mareykanku oo ballan qaadeen inay difaaci doonaan hase yeeshee banaanka ay ka istaageen hadalkay ku hadleen wuxuu ahaa xogayaha guud ee gaashaanbuurta NATO wuxuu ku hadlay inuusan difaaci doonin Ukraine hase yeeshee gaashaanbuurta NATO xubin dawlad ka ah hadii la soo weeraro ay difaaci doonaan ay qorigana qaadan doonaan. sidoo kale madaxweynaha Mareykanka oo asna khudbad jeediyay waxa uu sheegay inaan wiil Ameerikaan ah ku dhimanayn halka u dhaxeeya Ukraine iyo sidoo kale Russia. sidoo kale una qabatay inay ku hadaaqeen isbuucyadii la soo dhaafay inay saari doonaan dagaalku hadduu bilowdo oo ayada kaliya ay caayimo ahayd lagana filayay wali waa la jaakirayaan gaashaanbuurta NATO iyo sidoo kale Mareykanka ankeega wakiilada caalamiga ah wali ma saarin Russia.